markii uu ku guuleystay Donald Trump tartankii madaxweynenimada Mareykanka tiro badan oo dadweyne ayaa aaminsanaa inaanu degi doonin aqalka cad ee dalka Mareykanka ama ma aan uuna baahnaynba maadaama uu leeyahay dhismayaal iyo qasriyo uu ka heli karo wax ka wanaagsan adeegyada uu bixiyo aqalka cad ee dalka Mareykanka. barnaamijkeena waxaanu ku soo bandhigaynaa qaar ka mid ah qasriyada iyo hodheelada caalamiga ee uu leeyahay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. qasriga Mar-a-Lago ee gobolka Florida oo uu leeyahay madaxweyne Trump ayaa barihiisa xiriirka bulshada lagu arkayay isagoo dhex fadhiya maalintii uu qorayay khudbadii uu ka jeediyay caleemasaarkiisii. laakiin arrintii aan in badan waxba kala soconin waa hanaanka horumarsan ee uu u dhisan yahay qasrigan oo ku fadhiya masaafo 10,000 oo mitir oo iskuweera waxaana uu leeyahay ilaa 126 qol ama maqsin isagoo laba jeer laab ka weyn aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliyo. waana qasri leh ilaa 3 meelood oo loogu talagalay in lagaga dhunto weerarada dhanka bambooyinka waxayna ahayd bishii January markii uu Donald Trump go'aansaday in qasrigani uu noqdo xarunta uu ku shaqayn doono waqtiga xilli qaboobaha. qasriga kale ee ugu yaala xaafadda Manhattan ee magaalada New York waa qasriga sida weyn uga quruxda badan aqalka cad ee Donald Trump uu guuray waxaana qasrigu qayb ka yahay dhismaha weyn ee Trump Tower ee xaafaddaasi Manhattan iyadoo qolka soo dhaweynta ee qasrigaasi ay yaalaan kuraas iyo agab kale oo uu ku samaysan yahay dahabka nambarkiisu yahay 24 waana qasriga ay u dhameystiran yihiin dhammaan adeegyadii lagama maarmaanka ah ee nolosha bani'aadamku waana halkii uu madaxweyne Trump kula noolaa xaaskiisii u dambeeyay Melania iyo inankiisa yar ee 10 jirka. beerta lagu dalxiisay ee Trump oo uu leeyahay madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ah beer uu ka baxo geedka cinabku waxaana ay ku fadhidaa dhul beereed gaaraya 200 oo hektar waana beerta ugu weyn beeraha cinabka ee xeebaha galbeed ee dalka Mareykanka waxaana ku yaala guri ballaaran oo 40 maqsin ka kooban gurigaas oo leh hool lagu daawado sinamooga xero fardaha lagu tartansiyo iyo waliba balli kuwa lagu dabaasha. xarunta kale ee dalxiiska ee Zivan Esbirn oo Donald Trump ka sameeyay deegaan ku habboon dalxiiska iyo garoon lagu ciyaaro ciyaarta golfka ayaa ah xarunta uu ku dhex yaalo guri si kasta uga ballaaran aqalka cad ee Mareykanka waana xarun dalxiiska iyo nasashada ah loo tago oo ku fadhida masaafo gaaraysa 8,000 oo mitir oo iskuweera. Le Château de Bellamy waa qasriga baradhaafay aqalka cad ee Mareykanka waana dhismaha ku yaala dacalka xeebaha Caribbean-ka gaar ahaan jasiiradaha ay Faransiisku leeyihiin ee San Martin waana meeshii uu markiisii ugu horeysay ee uu Donald Trump markay ku ballan qaaday inay mustaqbalka ka mid noqoto hantidiisa taasoo uu ka dhabeeyay waxaana ku yaala guri qurux badan oo leh garoon lagu ciyaaro kubadda tennis garoon yar oo kale oo ciyaarta golfta iyo xarun kale oo jimicsiga guud loogu talagalay.